Assalaamu calaykum. Waxaa horaantii 1990 ay indhaha caalamku soo jiiteen fanaan reer UK ah, balse ka mid ah wajiyada ilaa haatan aan la xaqiijin shakhsiyaddooda. Waxaana 1996 loo aqoonsaday fanaankii ugu hibada wanaagsanaa qarnigii tegay. Haddaba waa kuma? Balse ka hor waa kuma fanaan? Fanaanka aynu maanta ka hadlaynaa ma aha heesaa, ee waa farshaxan yaqaan ama artist. Wuxuu aad ugu dadaalay inuu qoriyo xogo ku saabsan shakhsiyaddiisa. Sawiradiisu waxay ku baandhaafaa adduunka. Dalalka sawiradiisa lagu arko waxaa ka mid ah Masar, Falastiin, Maraykanka, Ingiriiska iyo kuwo kale aad u fara badan. Sawiradiisu badanka dadka way cadho geliyaan, balse dadka qaar way xiiseeyaan. Sawiradu sawiro badanaaba oo qaar ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, nidaamka caalamiga iyo habdhaqanka askarta. Sidoo kale ma jirto ninkani cid si sax ah u garanaysa magaciisa dhabta ah. Sawiradu gidaarada ku soo waxaa kaga tagaa magaca Banksy, tusaale ahaan Banksy Egypt, Banksy Iran, halkaasoo ay dadku uga aqoonsadeen magaca Banksy. Kaliya waxaa la ogyahay inuu 1974 ku dhashay dalka Ingiriiska. Ninkan ayaa wuxuu ka bedelay habka gidaarka wax loogu sawiro. Inkastoo sawiradiisu wada cajiib yihiin, haddana waxaa jira sawiro aad u soo jiitay indhaha caalamka. Waxaana ka mid ah sawiradaas 2003 ayaa wuxuu sawiray boqoradda Ingiriiska Elizabeth II, iyadoo wejigeeda u sawiro habay u eg tahay daanyeerka Shambaasi, kadibna uu yidhi ha loo dabaaldego. Sidoo kale sawir uu ku soo sawiro Falastiin oo ah gabar Falastiiniyada oo baadhaysa askari Yahuudi ah. Sawirkaasoo loo fahmay in Yuhuuddu xaq aanay u lahayn inay baadhaan, taa cagsigeedana ay Falastiiniyiintu xaq u leeyihiin. Waxaa ka mid ah sawirada cajiibka oo ninkani sawiray. Sawir uu ku soo sawiray kaan qaxoontiga ku yaala Faransiiska. Sawirkaasi oo ku muuqday Steve Jobs oo qaxoontiga, kaasi oo gacanta ku sita laabtoob yar oo qadiimi ah. Ninkan ayaa haddaba waxaa lagu arkay arrimo la yaab leh oo dadka intooda kale aan lagu arag. Arrimaha la yaab kale ee lagu arkay waxaa ka mid ah sawiradu sawiro dhammaantood waa kuwo qaali ah, asiistana lacago waaliya. Waxaa jira sawir isagu sawiro oo ku soo bandhigay goobaha sawirada muhiimka lagu gado. Lacagtii ugu dambeyn la go'aamiyey in lagu iibsado ayaa waxay gaadhaysay ku dhowaad €1 milyan. Balse kadib maxaa dhacay? Intay dadku ku mashquulsanaayeen hadalka iyo farxadda, ayaa waxay arkeen sawirkii hoos soo baxay oo go'go'aya, halkii ayuuna sawirka ku jeexjeexmay iyagoo arkaya. Intaasi kadib waxaa Instagram ku soo qoray hadal dheeldheel ah: Gone, gone, gone. Intaas kadib waxaan soo geliyay muuqaal ku faahfaahinaya habkii uu arrinkaas u sameeyey iyo qaabkii uu farsameeyey. Dadkuna waxay is weydiiyeen sababta lacagta intaas leeg isaga khasaariyey. Arrinta kale la yaabka ayaa waxay tahay Banksy waxaa 2007 kaga guulaystay dalka Britain fanaanka ugu hibada wanaagsan ee ugu weyn. Waxaana la sugayay maalintaasi in la arko wejigiisa oo la guddoonsiiyo jaa'isaddaasi abaalmarinta ah. Hase haatee fadhigii ma uusan iman, jaa'isaddiina ma uu guddoomin. Waxa waayahan 2 sano u dambeeyay bulshada iyo dadka ku dhaqan Britain ay isla dhex marayeen war ku saabsan soo noqoshada Banksy. Waxaa la guddoonsiiyey jaa'isadda Albert ay bixiyeen qoyska boqortooyada Ingiriiska. Isna waa uu guddoomay, balse aan weli wejigiisa dhaayo la saarin. Waxa uu sidoo kale 2010 uu sawray qaar ka mid ah dadkii caanka ah soo maray taariikhda boqortooyada Ingiriiska. Waxaana ka mid ah Winston Churchill, Stephen Hawking, Queen Victoria. Waxaan filayaa inuu in badan kaa qosliyey Charles Chaplin iyo weliba aktarka caanka ee Idris Elba. Sidoo kale waxaa jira muuqaal oo hadda ka hor soo geliyay YouTube-ka. Muuqaalkaasi ayaa wuxuu soo geliyay waqtiga ay dagaalada ba'ani ka socdeen Suuriya. Muuqaalkan ayaa waxaa ka muuqday koox Islaamiyiin ah oo rabay inay ka soo ridaan cirka wax u eg diyaarad, kuwaasi oo ugu dambeyn ku guulaystay, muujiyeyna farxad. Hase haatee waxay soo rideen maroodi ka caana filmaanta Disney-ga,
haddaba muuqaalkan sidaas isugu geeday ayaa waxuu micnaha u daayay daawadayaasha. ugu dambayn, farshaxanku waa mid ka mid xirfadaha aamusan. ciddii ugu horreysay wax sawirtaana waxay khibradu sheegaan inuu ahaa nin Afrikaan ah kaasi oo noolaa 70 sano ka hor. intaas ayuu noogu eegay daawadayaal muuqaalkeena maanta. fadlan haddii ku cajabay muuqaalku like saar, subscribe saar oo nagu soo biir. magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed, bartaad nagala socotaana waa Faraax 2. assalaamu calaykum.